Assalaamu calaykum asxaabey, waa idin wada salaamay meel kastoo aad joogtaan. Arrintan aan kasoo hadlayo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo muhiim markaan leeyahay sooma koobi kara halaha say muhiim u tahay. Marka arrintanitod waa domestic abuse ama sida u taqaanid domestic violence. Waxaa waaye marka aabaha madaxa looga taagay canaad iyo dhibaato lagu haayo ama hooyada dhacanaad iyo dhibaato iyo cay iyo hanjabaad lagu haayo ama dilba gacan qaad ay meesha jirto. Marka taasoo kale waa domestic abuse ama domestic violence dagaalka oo dhibaatada oo qoyska. Marka waxaa loo baahan yahay arrintaas hadday kugu dhacdo kale in aad muxuu ahaye 999 aad garaacdo oo xabsi gurigaada aadan ku noqonin. Qofta oo abuse-ka wado hooyaha ahaato aabaha ahaado xabsi asaa gelaya qofkaasitood oo gurigaas laga saaraya. Marka waa muhiim boliiska markaa wactaan hay-ada kale idiin gudbinaya hay-ada kale waxyaabo badan ay dadka la qabataa. Ha ahaato guri inay kula raadiyaan, ha ahaato sharci inay kula raadiyaan, ha ahaato lacag inay kula raadiyaan benefitkaaga. Marka hay-adaas lagu gudbinayo refuge marka meel kale lagu geynayo haddii qofka abuse kugu sameynayay oo meeluu ka dhow yahay laga cabsanayo ay jiraan adiga caruurta hooyada iyo caruurta meel kale la geeyaa. Marka waa muhiim arrintaas oo kale marka in aad ka dacwooto oo askarta u sheegto booliiska u sheegto iyo hay-ad kale ku gudbinayaan. Ilmaha uma fiicno waxyaabahaas oo kale. Waxaa la leeyahay ilmihii iga haadaysaanay yeeleen ilmihii dhakaraariya iga noqdeen waa madax adkaadeen war igama maqlaayaan ma maqlaayaan saa waxay arkeen waxay ku soo koreen qayladan iyo buuqanitood. Marka sida waalid u tihiin ilmihiina ilaalsada ilmaha markaad ku soo koriso si kalsooniya si naxariisa ilmaha ayagana naxariis ay baranayaan laakiin adiga hadaa ku soo koriso qallafsanaan iyo qaylo iyo buuq iyo canaad iyo muxuu ahaay hanjabaad aad ku soo koriso ayagana sidii ay noqonayaan. Marka hadhow ma soo toosin kartisaa maskaxdii adaaba bedelay markay yareed. Laakiin waxaa yeeshaan hadeertanitod canaadkan iyo waxaanitod si looga baxo fadlan muxuu ahaay adigana aad iga baxdo qofka canaadka lagu haayo waxaa yeeshaa 999 ka garaac askartaha waco 999 waaye kuwa emergency-ga waaye si oo muxuu ahaayay lagaaga qabto waxaanitod oo wax looga qabto. haddaadan adiga wax ka qaban qof wax ka qaban karto aad qarsato dhib waaye waxaad qarsato waa ku qarsadaan ee ogaaw. Hayteeda kalena Soomaalidan anaga waxay dhahdaan haddii lacala wadanka la joogo kale oo way soo carootay ha loo celiyo gurigeeda ha lagu celiyo. Marka gurigaaga maxaa lagugu celinaa guriga dagaalka iyo dhibaatadii kaaga horeyso mala dhahay ninki maxaad u dishay iyo waxaas lama dhaho meeshaasaytood. Laakiin wadamaadkan waxaas ma yaalin wax ku dili karo ma lahan oo gacan kuu qaadi kara adiga leewaay haddaad yeesho ninkiiyo adigana saasoo kale wax madaxa kaaga istaagi karo ku canaadi kara ma lahan. Marka fadlan ilmahana ha loo naxariisto idinkana isku naxariista ay cajalkana ha la wada dhageysto meel dheerna ha la gaarsiiyo sidii dadka kale oo walaalaheenana ay aga faa'iidi lahaayeen insha Allah. ilaahay idinkiisa soo wada dhawaada. Marka waxaan qof walba u duceynaynaa inuu ilaahay dadka soo wada hadeeyo in oo ilaahay qeyr dhexdeena dhigo la isku naxariisto ilaahay idinkiisa heshiis iyo galgaceel fiicanna dhexdeena dhigo insha Allah si ilmaheenan ay noogu soo hagaagsamaan insha Allah. hadalkii aad ii gooyay. Salaamu calaykum.